xubnaha wasiirada guddoonka xisbiga martida kale sharafta leh madaxweyne ku-xigeenka aad iyo aad baan ii salaamaya warkaygu ma badno waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka oon constituency ka soo wada jeedno waxa weeyaan aad iyo aad raggi isku dhow baan ahay laakiinse xorgufta moogtahay siyaasaddu waa iska sunnatul xayaat intaa wax dhaafsanay ma jirin waa labada iyada u baahan marka ta koowaad waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka oo gartay inuu iiga tanaasulo arrintii aan isku qabannay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waa nin moogtahay xisbiga raggii dhisay ka mida hedel badanna ka soo galay isagoo u turaya markaa xisbigii au moogtahay asaasiyaashiisa ka mid ahaa xisbigii au dhowr iyo 10 sano hedelka soo geliyey maanta in uu moogtahay iiga tanaasulo waxa weeyaan wuxuu iga mudan yahay mahad iyo sharaf taasi waa halkaa waa tu ku socota madaxweyne ku-xigeenka waxaa kaloo mahadnaqayaa intii ka shaqaysay isku soo dhoweynta ee hawshaa ka siixan weyday ama wasiir ha noqdaan uguna cadcaddaa Soomaali iyo ha noqoto moogtahay dhaqan iyo moogtahay reer aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqaya waxaa kaloo moogtahay halkan ka sheegaya waa labada iyada unbaa moogtahay dabac siyaasadeed galee gobolkii aan ka soo jeednay mujtamaca ku nool waxaan ku leeyahay nabadgelyada aan wada ilaashanno walaalnimadeenna aan xajinno waxani waxa weeyaan haddii inaku moogtahay aanan hore moogtahay tartan noocaasi hawlayna dhex mari jirin dee beelaha dhexe aad buu dhex mari jiray dabadeedna markii way ka heshiin jireen sideedii dhaqankii oo kale aan qaadanno aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa beelaha dhexe iminkii haatanna madaxweyne ku-xigeenku waxa weeyaan waa odaygaygii waa madaxweynahaygii waan la shaqaynayaa mustameed buu yahay wax dhibaatii ma jirto shicibka awdal waxaan leeyahay waa annagaa iskarab joogna waa annagaa gacmaha haysaysana iyayna xorguftaasi idinla fogaanin waa aanan ka howlgallo sidii dadkeenna iyo xisbigaba aan moogtahay hawl innagoo gacmaha haysana aan uga howlgeli lahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu